Assalaamu calaykum kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa barteena YouTube-ka ee ka habari qodobada wararkeena xilligan waxa ugu waaweyn ciidamo taageersan wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya oo bilaabay dhaqdhaqaaq halis ku ah doorashada magaalada Boosaaso wararkii ugu dambeeyay xiisad dagaal oo ka taagan Boosaaso ayaad warkeena ku daawan doontaan maleeshiya beeleed taabacsan Generaal Indha Qarshe oo hor istaagay inay doorasho ka dhacdo magaalada Gaalkacyo iyadoo halkaasi uu gaaray madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Qoorqoor madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo kulan xasaasi ah la qaatay safiirka cusub ee dawladda Mareykanka ee Soomaaliya maxay ka wada hadleen warar ayaan idinkaga hayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo sameeyay xilka qaadis iyo magacaabis wararkaasi kuwa kale ayaan faahfaahin doonaa waa habeen Khamiis ah Jimco ayaa soo galaysa 3 Maarso sanadka 2022 hadaad nagu cusub tahay subscribe saar kanaalkeena kadibna furo gambaleelka si wararkaan halkan soo dhigno aad hesho hadaad aragtidaada noo reebto aan kaaga mahadcelinayaa u diyaar garoowa faahfaahinta wararkaasi wararkaan ka helayno magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamo gadoodsan oo taageersan wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan deegaan ka tirsan gobolka ciidamo taageersan Jamaal ayaa kamid ahaa daraawiishta Puntland waxayna hadda daacad u yihiin wasiirka oo isagu qarka u saaran in uu waayo kursiga uu ku fadhiyay ee xildhibaanada baarlamaanka federaalka wasiir Jamaal oo doonaya kursiga tirsigiisu yahay hoob 169 ayaa waxa la soo warinayaa in uu maamulka Puntland kala dagaalamayo in mar kale uu ku soo laabto taasi oo keentay in goorsi horeysay oo maanta ah ciidamada taabacsan wasiir Jamaal ay xirtaan jidka ka yimaada tuulada Ceel Daahir ee taga magaalada Boosaaso inkastoo markii dambe la furay wadada laamiga ah ee deegaanka Ceel Daahir ee ay xirteen ciidamadaasi kadib markii ay arinta soo dhexgaleen odayaasha dhaqanka haddana waxa weli taagan cabsi laga qabo in xiisad dagaal ay ka qaraxdo Boosaaso ciidamadan ayaa waxay ku hanjabeen inay dagaal ku qaadi doonaan magaalada Boosaaso haddii aan la joojin waxa ay ku sheegeen boobka qaawan ee ka dhanka ah kursiga beeshooda waxay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ka dalbadeen in uu faraha kala baxo kuraasta beeshooda taasi oo suurtagelin karta doorasho ka dhacda Boosaaso wasiir Jamaal Maxamed Xasan ayaa horay uga digay in sida ay ku socoto doorashada kuraasta taala Boosaaso ay keeni karto amni darro waxaana hadda si yaraatay rajada uu ka qabo inuu kursigaasi ku soo baxo markii loo wareejiyay beel kale si kastaba doorashada 16 kursi oo kamid ah kuraastii ugu horeysay ee ay deegaan doorashadoodu tahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa qorshu yahay in 5 iyo 6 bishan Maarso lagu qabto magaaladaasi waxa magaalada Boosaaso ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyay ee doorashada kuraastaasi ayada oo loo diyaariyay in doorashada lagu qabto teendo ku taala garoonka diyaaradaha Boosaaso oo ammaankeeda lagu wareejiyay ciidan gaar ah oo booliis ah wixii ku soo kordhay xiisada Boosaaso ka taagan oo laga cabsi qabo in dagaal isku bedesho wararkana soo socda ayaad ku daawan doontaan haddii Rabbi qadaro waayahay sidoo kale ciidan beeleed ku sugan magaalada Gaalkacyo oo ka gadoodsan in doorashada laga reebo taliyii hore ee ciidanka xoogga dalka Generaal Daahir Indha Qarshe ayaa ku hanjabay in magaalada aysan ka dhici doonin doorasho ciidankan ayaa sheegay inay la wareegi doonaan goobta doorashada lagu qabanayo haddii uusan madaxweynaha Galmudug uu ka laaban go'aanka uu kursiga beeshooda kaga dhigay qoondada dumarka ciidankan oo isku aruursanaya duleedka Gaalkacyo ayaa ku doodaya in la dulmiyay Indha Qarshe xilli ay beeshiisu siisay kursiga hase yeeshee uu Qoorqoor kursigaasi ka dhigay qoondo dumar ah si cadaadiska beesha caalamka uu isaga yareeyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qoorqoor ayaa maanta tagay magaalada Gaalkacyo si xal uu ugu helo arrimaha doorashada iyadoo ay sareyso cabsida laga qabo in goobta doorashada ay weeraraan ciidamo beeleed ka careysan boobka kuraastooda taliyii hore ee ciidanka xoogga dalka Generaal Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe oo dhawaan shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in loo diiday u tartamida kursiga tirsigiisu yahay hoob eber 20 oo laga dhigay qoonda haween ah Indha Qarshe ayaa ku eedeeyay madaxweyne Qoorqoor inuu hor istaagay rabitaanka beeshiisa oo kursigaasi ku sharaftay sidoo hadalka u dhigay taliye hore
indha qarshe ayaa dalbaday in arrintan soo farageliyaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo gudyada doorashooyinka islamarkaana la hakiyo doorashada kursiga uu u tartamayo oo tirsigiisu yahay hoob eber 20 inta xal rasmi ah laga gaarayo muranka hareeyay kursigaasi. si kastaba doorashada golaha shacabka oo ahayd in loo madax banaaneeyo odayaasha dhaqanka iyo beelaha iskale kuraasta ayaa waxaa xilligan saameyn xoogan ku leh madaxda dowlad goboleedyada oo iyagu sida ay rabaan ka yeesha. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ahna gudoomiyaha golaha midowga murashaxiinta mucaaradka ayaa maanta kulan la qaatay safiirka cusub ee dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Larry Andere. kulanka oo ka dhacay xarunta safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxaa looga wada hadlay xaaladda dalka, dhamaystirka iyo dardargelinta doorashooyinka dalka. sidoo kale waxaa kulankan diiradda lagu saaray caqabadaha hortaagan doorashooyinka iyo arrimaha amniga xilli ay Soomaaliya ku daahday xaaladda kala guurka. Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu dambeyntii uga mahadceliyay safiirka taageerada dowladda Mareykanka ku bixiso dhismaha nabadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliya. kulankan ayaa imaanaya xilli ay dalka ka sii socoto doorashada golaha shacabka oo dhowaan muddo kordhin u sameeyeen golaha wadatashiga qaranka iyadoo waqtiga la soo gabagabeynayo la shaaciyay. Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka sida weyn isha ugu haya doorashooyinka Soomaaliya isaga oo dhowr jeer ku goodiyay tallaabooyin ka dhana madaxda Soomaalida dhowaan qaaday go'aano daba socda arrintaasi oo ka dhan ah qaar ka mid ah madaxda iyo siyaasiyiinta. ugu dambeyn madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo wareegto cusub soo saaray ayaa sameeyay xilka qaadis iyo magacaabis. Laftagareen ayaa xilka ka qaaday gudoomiyihii maamulka gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Cabdiraxiin Nuur isagoo magacaabay mid kale oo cusub. Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa markii saddexaad loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo haatan ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed. gudoomiyaha xilka laga qaaday ee Maxamed Cabdiraxiin ayaa haatan ku maqan dalka dibadiisa wuxuuna xilka hayay muddo kooban ilaa iyo hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee xilka looga qaaday gudoomiyihii hore waxaase wareegtada lagu sheegay inay muhiimadu tahay dardargelinta howlaha maamulka. isbedelka lagu sameeyo maamulka Shabeellada Hoose ayaa marar badan soo noqnoqday waxaana muddo sanad ka yar isku bedelay 3 gudoomiye oo kala ah Najax CD iyo Maxamed Cabdiraxiin Nuur oo haatan xilka laga qaaday. Shabeellada Hoose oo ah gobol ballaaran isla markaana caan ku ah wax soo saarka beeraha ayaa la ciirciiraya dhibaatooyin isbiirsaday waxaana ugu daran howlgalada Al-Shabaab. dhinaca kale gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa maanta loo dhaariyay xilka gudoomiyenimo kadib markii uu madaxweynaha Koonfur Galbeed uu u magacaabay xilkaasi. munaasabada lagu dhaarinayay gudoomiyaha cusub waxa goobjoog ka ahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cali Saciid Fiqi, gudoomiyaha maxkamadda sare iyo mas'uuliyiin kale. mas'uuliyiinta gobolka joogtay ayaa gudoomiyaha ku bogaadisay shaqada uu u hayo maamulka Koonfur Galbeed isaga oo loogu hambaliyeeyay shaqada cusub ee loo igmaday. Ibraahim Aadan Cali Najax wuxuu bedeli doonaa gudoomiyihii hore ee gobolkaasi Maxamed Cabdiraxiin Nuur. halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka ee ka habari inta ku kulmeen wararkana soo socda nabadgelyo.